munaasabada bandhiga buugani waxay ahayd mid ka duwan sida looga bartay xafladaha ka dhaca Soomaaliland sababtoo ah haba yaraatee laguma casuumin siyaasiyiinta sare ee dawladda amaba kuwa ka socda xisaabta ku loolamaysa siyaasadda balse waxaa goobtani lagu casuumay dhalinyaro iyo aqoon-yahano kuwaas oo loo bandhigay buugga magaciisu yahay Masraxa Cadaabta buuggaasina waxaa qoray Cabdinaasir Axmed Ibraahim oo kamid ah bahda qorayaasha ee Soomaalida madashaasina waxaa hadal ka jeediyay qorayaasha iyo aqoon-yahanada lagu marti qaaday bandhiga buuggaasi kuwaas oo ka socday meelo kala duwan isla markaasina bogaadiyay qoraaga buuggani iyo sidoo kale duruucda uu ka hadlayo qoraalka buuggani saddexda arrimood dadka wax lagu gaarsiiyo ama muuqaal dadka wax ugu sheeg ama cod wax ugu sheeg ama qoraal wax ugu sheeg marka qoraalku uu ka culus yahay waanu ka waaritaan dheer yahay awoodaas horta uu qoraal u leeyahay qoraal waxaan leeyahay mar labaad Cabdinaasir Madaalow ha ka daalin qalinka iyo tawaada qofka buugga qora hadii loo sheegi waayo meesha uu dhaliisho ku leeyahay hal waxa uu tarnay male Cabdinaasir wuxuu qoray buugga nin buu ka sheekaynayaa saaxiibkeen Cabdinaasir dumarka intaas oo ka tawdhigaya waxa uu jeedaa Cabdinaasir dumarku iska ilaaliyaan sarabsan oo sameeyay mid ugu jeedaa xubnaha kale ee goobta ka hadlina waxaa kamid ahaa agaasimaha guud ee telefishinka Hon Cable Maxamed Cabdi Ilig iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Sharmaarka Geele wax qoridu waxay caawinaysaa nolosha qofka ka dambeeya wax qoridu ha noqoto nolosheena qayb kamid ah qof baa qoraal kan iska yaala muxuu u leeyahay dad buu ugu talagalay ugu dambeyn saaxiibkay waxaan ku dardaaraya inuu sii joogteeyo qoraalka iyo akhriska iyo wacyigelinta ummadda isla markaana xaqiiqooyin kale oo nololeedan ku aqaano way kamid tahay aragtida fog ee falsafada nolosha guud inuu wax nooga qoro qoraaga buuggani Masraxa Cadaabta Cabdinaasir Axmed Ibraahim ayaa waxa uu ka hadlay sababta uu ku doortay magaca buuggani uu xambaarsan yahay sababta aan ugu bixiyay buuggan Masraxa Cadaabta hadaan ku soo dhawaado aad ugu soo dhawaado masraxu waa fagaare oo halkan aan taaganahay oo kale deetana buuggayga qofka akhriya ee dhameeya wuxuu fahmi doonaa fagaare halkan aan taaganahay oo kala ah oo waxaad ka warantaan halka laga soo bilaabay ilaa halka laga soo bilaabo meel cagta laga saaraa aanay jirin oo ay hablo wada dhaawacan jiifaan saas oo kale buuggaygu waa sidaa waa fagaare page-ka aad furtaba inaba ka dhex ooyeysa wacyigelin baan ugu talagalay waxaan ugu talagalay raggu inay dhibaatada ka daayaan hablaha waxaan ugu talagalay inta ugu yaraan bulshada ku darsan kara inay noqoto inan da'yar oo walaashaya oo soo koraysa oo bahalkaas oo kale oo meel kasta jooga inaan uga digo marka buuggani wuxuu ka hadlayaa waa wacyigelin Cabdi Shakuur Dayib Maxamed Hon Cable TV Hargaysa